Maxkamadda Gobolka Banaadir ayaa maantay xukun adag ku riday 36 nin oo ajaanib ah. Maxkamadda Gobolka Banaadir ayaa maantay xukun adag ku riday 36 eedeysane oo ajaanib ah oo maalmihii la soo dhaafay maxkamaddu ay ku mashquulsanayd dhageysiga dacwadda loo haysto oo ah in ay si sharci darro ah uga kalluumaysteen xeebaha Soomaaliya. Raggan ajaanibta ah ee maanta xukunka adag lagu riday ayaa u kala dhashay dalalka Iran iyo Pakistan, waxaana laga soo qabtay xeebta magaalada Hobyo ee gobolka Mudug iyagoo wata doomo ay kaga kalluumaysanayeen xeebaha Soomaaliya. Maxkamadda oo 3 jeer u fariisatay dhageysiga dacwadda raggan ajaanibta ah loo haysto ayaa ugu dambeyn maantay ku xukuntay raggan midkiiba in uu bixiyo lacag gaaraysa $11,000 oo ah ganaax iyo $30,000 oo ah magdhowga kalluunkii ay ka qaateen xeebaha Soomaaliya oo ay geeyeen dalka Cumaan 29 bishii 11 sanadkii tagay ee 2022 sida ay maxkamaddu sheegtay. Gudoomiyaha Maxkamadda Gobolka Banaadir Saalax Cali Maxamuud ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay la wareegtay 2 doomood iyo qalabkooda kalluumaysi oo ay wateen raggan ajaanibta ah. Xukunkan cidii aan ku qanacsanayn waxa u furan racfaan ku siman inta sharcigan uu tilmaamay. Xukunkan waa la gaaray maanta oo ay taariikhdu tahay 6 bisha 6 2023. Wabillahi tawfiiq ayuu yiri gudoomiyaha Maxkamadda Gobolka Banaadir Saalax Cali Maxamuud. Waxa uu sidoo kale xusay gudoomiye Saalax in raggan ay haystaan fursad kale oo ay racfaan kaga qaadan karaan haddii aysan ku qancin xukunka maxkamadda. Si kastaba ha ahaatee, raggan ajaanibta ah ee xukunkan uu ku dhacay ayaa la ogeyn sida ay ugu fududaan doonto bixinta lacagahaasi lagu xukumay. Waxay sidoo kale Maxkamadda Gobolka Banaadir uga digtay ajaanibta kale ee badda Soomaaliya sida sharci darrada ah uga kalluumaysta in ay ciqaab adag la kulmi doonaan.